kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkaasi aad u jeedaan ninkaa meesha fadhiya waa mid ka mid a khawaarijtii daacish oo maanta isku soo dhiibay ciidanka geesiyaasha Puntland ee howlgalka ciribtirka kooxda argagixisada ka wada buuraleyda gobolka bari. ninkaas inuu isu soo dhibo horta waa guul weyn, laakiin habka loo maamusay iyo habka loo soo dhaweeyay ayay dood badan ka taagan tahay oo khilaaf baa ka bilowday oo la leeyahay ninkan waa ninkii qaraxa ciidankii shalayto lagu laayay saldhigooda weliba agtiisa lagu laayay 14 askari ahaa ee qaraxa loo dhigay ninkii u dhigay weeye. maxaa loo soo dhaweynayaa oo ninkii miinada xabaalaysa loogu soo dhaweyn baa la leeyahay. dood adag baa ka taagan. ninka waa nin reer Puntland ah, waa nin deegaanka u dhashay, waa nin kooxda ka tirsanaa, waa hadda waa isa soo dhiibay. horta waan dul istaagi doonaa. waxaa sidoo kaleeto maanta ciidamada daraawiishtu ay cagta mariyeen dhowr goobood ilaa 5 ajaaniba ayaa halkaasi lagu dilay sida ay xogta igu soo gaadhayso. iyadana waan dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kaleeto mid iyo labo aan rabaa inaan ka idhaahdo arrin cajiib badan oo aad iyo aad aan ula fajacay baa ka dhacday magaalada Laascaanood. arrintaas waxay daba joogtaa dagaalkii maalin ka hor ka dhacay tuulada Dhuunya oo og dusheeda maleeshiyadkii SN markii ay duulaanka anu dagaalka kama hadlin istuutoriyaheedu waxa weeye xoogana khasaaraheeduna uu iska marka adigu waana iska yar mashquulsanaa. dagaalkaas horta waa inaga daba geyn doonaa sida ay wax u dhaceen iyo waxa uu ka bilowday iyo xoolo ay dhaceen nimanka maleeshiyadka isaaqa ay dhaceen, xoolo ay boobeen ay dhaceen oo meesha ay ka haysteen iyo sida looga soo riday iyo khasaaraha ragga laga laayay halka kaga dhintay iyo sida ay wax u dhaceen waan dul istaagi doonaa. laakiin arrin kale taa inaga daba geynaya waxaa la soo qaaday mid ka mid a dhaawacyadii halka marka la soo qaadayay waxaa loo maleynayay nin reer SSC qaatuma loo maleynayay. show ninkan reer SSC ba mehe waa nin isaaq oo habar jeclaa weey. isbitaalka weyn ee Laascaanood baa la keenay, waa la dhaawaciyay, waa la daaweeyay. weliba daawacintiisi markii uu ficnaa waxaa la meel baa la arkay xoogaa waxa weeye inaan waxba laga qaban karin isagoo la rabo diyaarad in lagu soo qaado oo loo soo qaado Muqdisho iyo haddana la sii gudbiyo. yaaba ninkii uu baaritaan lagu sameeyay la ogaaday inuu ninku habar jecelaayay. marka horena ninka waxaa loo daaweynayay nin majeerteena loo maleynayay. arrintaas oo fajaciya la yaab noqotayna waa inaga daba geynayaa. dagaalkaas sida uu dhacay iyo khasaaraha gaadhay nimankaas iyo xoolihii ay dhaceen oo laga soo riday iyadana waa inaga daba geyn doonaa. soo dhawaada fogeeya muuqaalka meel dheer ka tuura idinkana like taa ka ilmaan barkasi insha Allah taala. aynu ku bilownee ninka sawirkiisa aad arkayseen waa mid ka mid ah khawaarijtii daacish ee buuraleyda gobolka bari. waa nin deegaanka ka soo jeeda laakiin waa dadka laga roonayaasha ee la adeegsaday buu ka mid yahay. ilaan kooxdan ajaanibta dad bay ku adeeganayaan oo kaba qaad u ah oo waxa weeye hor kacaya oo dadka dhibaataynaya oo ummadan waxa dhibaya oo waxooda boobaya oo xoolihii boobaya oo wax walba sameynay. waxa weeye waa dadka deegaanka way dadka la adeegsanayo. nimanka khawaarijta ajaanibta dadka ay adeegsanayaan waa dadka deegaanka. ninka ka soo tagay Addis Ababa ama Naazireed ama aan dhahnay baashi leeyahay Bahardaan ama Maqale ama ka imaaday waxa weeye Dubai iyo baasha la yiraahdo Saudi ee Suuriya, Afghanistan, Pakistan ninka ka imaaday ilaa iyo Yurub, America muxuu ka yaqaanaa qandala iyo muxuu ka yaqaanaa buuraleyda Calmiskaad iyo Calmadow iyo muxuu ka garanaya? waxba kama garanaya. dadka meesha marka la adeegsanaya nimanka marka dadka adeegsanaya inay dadkooda dhibaateeyaan loo adeegsanayay buu ninka ka mid ahaa. markuu adkaysan waayay oo madaafiicda iyo suugu balada saw oo waxa weeye ajaanibtii waxa weeye meydkoodu waran yahay oo ay sii cararayaan oo waxay iska celin karin yaa wuxuu yidhi haddaad jaanis haysataay ka faa'iidayso. baaqi Saciid Cabdullaahi Deni ahaa hadda isa soo dhibada isa soo dhibi weydo oon dagaal kugu qabana hadhow waa dil hadda ka faa'iidaysa buu naftiisu jecelays waa isa soo dhibi horta ninka inuu isa soo dhibay isaga ay danu tahay. Puntland danu maaha, shacabka Puntland danu maaha, ciidanka Puntland danu maaha, isaga naftiisa ay danu tahay inuu dee inta yare u dhiman uu sii noolaado isaga danu tahay. isa soo dhibistiisa markaa dee isa soo dhibaaba leeyahay waxba dhib ma laha, laakiin dood baa ka taagan. ninkan waxaa la leeyahay waaba ninkii shalay tomiinada u dhigay 14 sargaal ee ciidanka Puntland ka tirsanaa ee gaarigay sarnaa ku qarxiyay miinada u qotomiyay. waay waxa weeye sida loola dhaqmiyo loo soo dhaweeyay waliba mas'uuliyiintu waxay dhaheen dagaalka hore ka dhagal bay dhaheen raacba le ciidankaado hore ka galbaalay dagaalka oo tusi baa leeyahay deegaanada ay joogaan nimanka iyo tusi baa leeyahay. kulay waxay uga gol laheeyba arrinta falcelin badan baa ka dhalatay.
waxaa la soo jeedinayaa in ninkan oo loo baahnaayo mas-uuliyiinta lagu dhaliilaya ninkan maadaama isa soo dhiibay ha la geeyo meel dhaqan celina xoogaa ha joogo 5 bilood 6 bilood 7 bilood 2 sano 1 sano intuu doonaba ha iska joogo kadib ninkaas wixii laga dhigayo wixii laga dhigayo meeshii loo diray ha loo diro wixii xogo hadda laga qaadan karana ha laga qaato laakiin ciidanka ayaan lagu sii dhexdaynin oo yu dhibaataynin haddana mar kale ka daaya baa la leeyahay si kastaba horta ninka waa isa soo dhiibay niman kale oo ajaanibana gacanta lagu hayaa baa la yidhi dabcan dee wadamadoodii waxba lala raadsan oo waxaa loo soo bandhigi layahay oo ciidamadu ay usoo bandhigi layihin sawiraantooda maanta howlgalkii ugu dambeeyey dhowr deegaan ayaa cagta la mariyey oo ciidanka daraawiishta cagta mariyeen ilaa 5 ajaaniba ayay weerarkaasi howlgalkaasi lagu dilay baa la yidhi guul weyn oo taariikhiya laga gaadhay ilaa duleedka qandala buuralaydaas oo waayihii ugu dambeeyey ay ku xooganaayeen cagta la mariyey marka deegaan baad hadda wax badan ba uma dhinaba gabagabay horta taagan yihiin kooxda waxaa weye hal la diliyo hal la qabtoon baa laga dhigayo waa lagu sii daba jiraa si kastaba howlgalku waa socdaa guul weyn bayna gaadheen ciidanka puntland intii dhimatayna allaha u naxariisto inta ku dhaawacantayna allaha u boogadhayo inta hadda howlgalka ku jirtana iyagoo bad qaba nabadgeliya deegaankooda amniya ilaahay waxa weeye dib ha ugu soo celiya guryahooda taasi waa mid ah howlgalku si fiican buu u socdaa dhinaca kale arrin aad iyo aad waxa weye la yaab lah ka dhacday magaalada laasacaanood dagaalkii horta dhuun yar baan ku horeyne dagaalkii dhuun yar ee maleeshiyaadku ay intay soo baxeen xoolaha ay dhaceen xoolay dhaceen nimanka horta xoola reer guuraa bay nimankii saaqi maleeshiyaadkii meesha joogay bay boobeen xoolihii markay dhaceen oo ay xoolihii dhaceen baa waxa weeye ciidanka isaasi khaatumana ay ku baxeen xoolihii oo la soo reeyay marka meeshaasa horta la isku xabadeeyey madaafiic baa la isku adeegsaday khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac balaba horta nimankii xoolaha soo doontay adduunka waxa kugu daran adoo dulmi wado xoolo dhacaya oo xoolo boobaya haddana dagaal intuu kugu qabsado in haddana lagu sii dilo oo meesha aad ku dhimato horta jabxun baa nimanka gaadhay dhowr baa laga dilay 10 ku dhawaad baa horta halkaa looga dilay weliba dhaawacyay meesha kaga carareen dhaawacyadii ay ka carareen ee dhuun yar ay kaga carareen ciidamadiisa si khaatuma horta soo qaaday qayb marka waa la aqoonsado waa la yaqaanay nin baa marka saacado kadib isagoo dhaawacoo meel yaallo dhinaca weliba si ay joogeen ku dhaawacan bay gacanta kusoo dhigeen ciidamadu markay gacanta kusoo dhigeen ninkii waxay moodayeen war ma jeerteen baan ay reer maxamed salmaan reer qaada buu yidhi waayahay baa le waa la qaado isbitaalka weyne laasacaanood baa la keenay dee ciidamadu carrada ka mid magaalaas yaqaanaba waa la soo qaaday haddii la keenay isbitaalkoo la dhaawiciyo la daaweeyo la nooleeyeyba oo la nooleeyey ninkii waxaa la yidhi wuxuu u baahday isbitaal dalka dibadiisa loo qaado isbitaalkii dalka dibadiisa ninkii loo qaadayo diyaaradii oo la sugayo ninkii waxaaba la yidhiba waaba nin habar jeclaa bal yaabka adduun ee dhacay ninkii habar jecelu noqday ninkii isaga ahaa habar jecelu noqday bal ka warraba ninkii la daaweynay ee kharashku ku baxay ee la garab taagna ee xaggan qaba lahaa haddii baaritaan hoose la siiyo warninka habar jeclaa layidhi ma dad gartaa la weyn ninkii waa la garto horta habar jecelu noqday ninkii waa la ilaalinayaa oo isbitaalka weyn ee laasacaanood ku jira ugu tegi kartaan halkaa laakiin waa la ilaalinaya ciidan baa la kordhigo oo lagu ilaalinaya shacab cadhaysan inay waxyeeleeyaan baa laga waxa weye aada looga cabsanaya halkaabaa horta lagu ilaalinaya dagaalkii dhuun yarna nimankii jabkaasaa horta gaadhay abaabul baa weli socda dhinacyadu mar walba haddana waa isfara saari karaan oogna dee waa la iskulaalaya oo aad baa la isku fiirsanaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay ilaah horta colaada dadkaa kala qaboojiyo reerahan isaaqe dhulkaysa si khaatuma ku duulaanka kusoo daarood baan dhulka qaadanaynaa lana ilaahay xaqiiqada ha fahamsiiyo waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho hadduu alla